بسم الله الرحمن الرحيم ومالينيما أحدا بشا نوفمبر نايتاي لحدا سنة كلابا كون لباتن يلابو كسوري برامج غارا ونكو يجي دونو dagaalkii dhex maray Carabta iyo Israa'iil sanadii 1948 dagaalkii u dhaxeeyay Carabta iyo Israa'iil sanadii 1948 ayaa wuxuu qarxay markii kadib shan wadan oo Caraba ay ku duuleen dhulkii hore ee Falastiin isla markiiba waxa lagu dhawaaqay madax banaanida dawladda Israa'iil May 14 sanadii 1949 ilaa sanadii 1947 markale May 14 sanadii 1948 Mareykanka ayaa wuxuu soo bandhigay inuu si dhab ah u qoonsaday dawladda Israa'iil ee ku meel gaarka ah balse intii uu dagaalku socday Mareykanku wuxuu sii waday cunaqabataynta hubka ee ka dhanka ah dhammaan dagaalamayaasha calanka oo kor loo qaado ayaa wuxuu ka dhignaa in la soo afjaray khilaafka dagaalka November 29 sanadii 1947 golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ansixiyay qaraar lambarkiisu ahaa 181 sidoo kalena loo yaqaanay qaybintii taas oo uu qaybin doono boqortooyada Ingiriiska ee hore Falastiin oo uu qaybin doono dawladda Yuhuudda iyo Carabta bishii May sanadii 1948 qaraarkan aaga muhiimka ah ee diimeed ee ku hareeraysan Jerusalem waxay ku sii ahaan doonaan buu yiri gacanta caalamiga ah ee maamusho qaramada midoobay Carabta Falastiiniyiinta waxay diideen inay aqoonsadaan nidaamkan kaas oo arkayeen inuu yahay mid u roon Yahuudda cadaalad darrana uu ku yahay dalalka Carabta ee ku sii nagaan doono dhulka Yahuudda ee qaybinta Mareykanku wuxuu doonayay muddo dhexe isagoo taageeraya qaraarka qaramada midoobay laakiin sidoo kale wuxuu dhiirigeliyay wadahadalada Carabta iyo Yahuudda ee bariga dhexe calanka oo kor loo qaado ayaa wuxuu ka dhignaa dagaalka khilaafka oo la soo afjaray sidoo kale November 29 sanadii 1947 qaramada midoobay markii ay ansixisay qaraarkaas lambarkiisu ahaa 181 ayaa sidoo kale boqortooyadii hore ee Ingiriiska ee Yahuudda iyo Carabta bishii March sanadii 1948 qaraarkan aaga diimeed ee ku hareeraysan Jerusalem waxa ay ku sii nagaan doonaan balayri gacanta ammaanka ah ee qaramada midoobay Carabta iyo Falastiiniyiinta ayaa diiday aqoonsiga nidaamka kaas oo roonbay dhaheen Yahuudda waana mid anagu aan raali ka ahayn ayay dhaheen cadaalad darrada iyo Carabta ay ku sii nagaan doona dhulka Yahuudda iyo qaybinta Mareykanka ayaa sidoo kale isaguna muddo dhexe taageerayay qaraarka qaramada midoobay laakiin wuxuu dhiirigeliyay inay wada hadlaan Carabta iyo Yahuudda ee bariga dhexe qaraarkan ayaa dhaliyay iska hor imaad u dhaxeeya kooxda Yahuudda iyo Carabta oo gudaha Falastiin dagaalku wuxuu bilowday weerar ay geysteen koox aan caadi ahayn oo Falastiiniyiin ah oo ku xiran cutubyo maxalli ah oo ka tirsan ciidamada xoreynta Carabta oo ka kooban muwaadiniin Falastiiniyiin ah iyo dalalka Carabta ee deriska ahaa xilliga daawade halkan ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo dagaalkaas yar aan ku soo koobay samiri ahaanta dagaaladan iyo dagaalo kale oo ka dhacay caalamka iyo dalalka deriska ah ee ay gumaysanayay oo isku xirxiray xuduud beenaadyada qola kastana uu sheegay in iyadu ay leedahay kadibna si asaamintii ah 50 sano u diray kadibna uu madaxa isku geliyay oo ay ka mid yihiin qaaradaha Afrika, Aasiya, Asia ayaan dhamaan midba markuu eegi doona fadlan nagu xirno oo channelka subscribe saar nabad